بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله تعالى dhowrka maalmood ee soo socda sida maamulka ay ugu talagaleen casharo siira ayaynu qaadan doonaa waxaan rabaa laba arrimood inaan ku baraarujiyo marka ugu horeysa oo marka koowaad ee maadada in la qaato la rabo iyo waqtiga 4 maalmood oo qiyaastii isku celceliska 1 saac oo loo qoondeeyay aad bay u kala badan yihiin waxaa laga yaabaa waxaynu ka gaari weyno in dowrooyinka iyo seminaarada kale lagu dhammaystiro ayaa dhici karta marka waxaynu ka gaarnayno arki doonaa masalada labaad maadada siiradu waa maado ku fiican in laga sheekeeyo oo aan lagu mashquulin kitaab iyo xaraf laqmayntii aan lagu mashquulin maado ku fiican weeye dee aayaad iyo axaadiis ma aha waa qiso iyo taariikh dhacday saasay kaga fiican tahay macnaa fahamka iyo la socodka saasaa uga wanaagsan dabaadaynuna labadaba aan isku darnana wixii aan gaari kari lahayn unbaa soo koobnaanaya oo soo gaabanaya إن شاء الله تعالى سيدا وننكي قتاب كان قري الشيخ وحي عبد السلام بالي وشيغي بينو مريدونا وحي يرفع فاهن وباهدا ما شرح أما وحكد هيس وباهدنا ماشي ذي لو تغينا إن شاء الله تعالى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شرح بدن ملها dhacdooyin taariikh waxaa dhacay waqtigaas u dhacay saasa dhacday baa la tirinayaa laakiin dhacdooyinka lama faahfaahinayo waxaa dhacay saasoo ma laha waxaa dhacay way sanadku markuu inta ahaa saasa dhacday sanadku markuu inta ahaana saasa dhacday sanadku markuu inta ahaana saasa dhacday de wax badan inta kama bixi doono inaha umbaan sida kitaabka loo qoray loona soo qoondeeyay qaybta u horeysa waxaa weeye nabiga dhalashadiisii sallallahu alayhi wasallam ilaa nabi laga dhigay 40 sano baa musanifku wuxuu ku soo koobay ama ka soo doortay wax qiyaastii 15 qodob dhan buu ka soo doortay waxa uu yiri marka koobaad nabigeena sallallahu alayhi wasallam abtirtiisu kaga sheekeeyay wuxuu yiri huwa abul qaasim wiilkiisa wiilashiisa ugu weyn baa la dhihi jiray oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ilaahu dhalay qaasim baa ugu weynaa abul qaasim محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر وقريش مقع على هذا مقع سفهر بالديه شري لكن أنا استيسه قريش لديه شري ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان هل كامرك لا تشوفه meel dhaxo waxaa jirta halka ay nabi ismaaciil u dhaxaysa magacyada lama garanayo markii cadnaan laga gudbay cadnaan waa la yaqaan oo waa la garanayaa inta kale ma diiwaan gashano ilaa nabi ismaaciil iyo cadnaan intii u dhaxaysay magacyadii atirka lama garanayo intaas waa abtirkii nabiga sallallahu alayhi wasallam de inta ugu horeysay asaaska qof waliba inuu yaqaan baa wanaagsan qodobka labaad nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri wulida nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu dhashay yatiiman agoon buu ahaa macnaheedu aabihii wuxuu dhintay isagoo uurka hooyadii ku jira marka uu dhalanayay weligii aabihiiba ma aragba ifka iyo noloshana kuma soo gaarin
agoonnimadaana qur-aankaaba ku tilmaamayo alam yajidka yatiiman faawa ilaahay agoon adooasoo intuu ku helay haddana dadkuuma dumin oo kuma soo dhoweyn oo dadku barbaariya oo booskii aabbaha kuu gala kuuma samayn agoon dayacan maadan ahayn wey xaaladiisu agoonnimuu ku dhashay yowma alithnayn maalin isniinuu dhashay inuu maalin isniina dhashayna nabiga isagaa sheegay sala allahu caleyh ali wasalam oo markay isniinta iyo khamiista maxaad u soomaysaa la yidhi isniinta maxaad u soomaysaa waxaa ka mid ah sababuhuu sheegay daaka yowmun wulidtu fiihi oo maalin aan dhashay ilaahay baan u shukrinayaa marka cibaadaana ilaahay ugu shukrinayaa lithnay casharata leylatan markay 12 habeen khalad tagtay maalin buu dhashay xalay markay 12 ahayd bisha min shahri rabiici alawal bisha rabiici alawal la yidhahda ama bisha mawliidka innagu aynu niraahno waay min caamil fiil sanadkii maroodiga xabashidii wadatay ay ma ka soo weerari jirtay buun ahaa alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiil lagaga sheekeeye ay kacbada inay dumiyaan rabeen marka ay ku soo dhow yihiin waxaan filayaa qiyaastii wax 10 kilomitir ka yar bay u soo jireen kacbada waa asxaabulfiilka halka lagu baabi'iyey waa halka ay mina iyo musdalifa iska galaan haddii hadda xajka ilaahay idin geeya ama tagteen markaad mina kasii dhammaanayso dhinaca musdalifana u gudbayso buuro waaweyna hadda korkooda la degan yahay baa soo foorarsanaya soo dhammaanaya halkaa waxaa ku yaala hadda dhulkaa lala simay tog weyn buu ahaan jira waadii muxasar la yidhaahdo togaa markay ku soo dhaadhaceen baa shimbirihii abaabiila lagu soo daayey sanadkaa weeye xilligaana quraysh iyo carab waxaa madax u ahaa ama oday u ahaa awowgii cabdilmutalib oo noola xilligaasuu dhashay nabigu calayhi salaatu wasalaam 12 bishii rabiici alawal sanadkii maroodiga iyo caamul fiilka la yidhaahdo oo maalin isniinuu dhashay hooyadii markii ay dhashay dabcan dee hooyada dhashay way noolayn laakiin aabihii ma noolayn nabigu calayhi salaatu wasalaam yaquulu sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi ana dacwatu ibraahim nabiyullaahi ibraahim alla barigiisii baan ahay wa bushraa ciisa bishaaradii ciisaan ahay labada arrimoodba qur-aankaa sheegay amaa dacwada ibraahim markii uu kacbada keenay ismaaciil oo nuugayay iyo hooyadii ee kadib uu ka laabtay waa kiidii rabbanaa innii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarcin cinda beytika almuxaram rabbanaa liyuqiimuu asalaata fajcal afidatan min annaasi tahwii ilayhim warzuqhum min athamaraati lacallahum yashkuruun ducadii allabarigii waxaa ka mid ah rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik ilaahu rasuul dadkaa meeshaa degan ka mida u soo dir oo waxyigaaga gaadhsiiya marka ducadii iyo allabarigii nabi ibraahim oo ilaahay aqbalay baan ahay ducadii aqbalkeedii baan ahay wa bushraa ciisaana suuratu saf baa lagu sheegay wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed axmedna magacyada nabiga ka mid ah hadda muxamed baad soo baratay axmedna waa la dhihi jiray alcaaqibna waa la dhihi jiray alxaashir waa la dhihi jiray magacyadiisay ka mid ahaayeen ra'at ummi hooyaday waxay aragtay buu yidhi xiina xamalat bi markay uurka igu qaaday isagoon dhalan markaan hooyaday uurkeeda galay waxay aragtay ama ku riyootay kaanna nuuran sidii iyadoo if nuur ahoo baxaya kharaja minhaa iyada uu ka soo baxay nuur adaa'at lahu isaga dartii ay iftay nuurkii iyo iftiinkiina uu gaadhay qusuuru busra magaalada busra la yidhahdaa daarahii ku yiilay oo min ardi shaam busrada magaalada oo dhulka shaam ku taalla magaalada busra waxay ahaan jirtay magaalo xadaarad iyo caasimad ah bay ahaan jirtay diineed caasimad ganacsi bay ahaan jirtay wadamadan shaam waxaa la isku yidhaahdaa hadda syria lubnaan falastiin iyo qayb urduna waa shaam la yidhaahdaa dhulkaas iyo ganacsiga
eeshiyada bari oo ilaa China iyo India iyo ka dhaxaysa xiriirka ganacsi halka xalkudhig dhexda la isu mari jiray buu ahaa ganacsiga Shaam iyo jasiiradan Carabta ka dhaxaysana halka la isugu iman jiray bay ahaan jirtay magaalo weyn oo caan ahaan jirtay oo daarade hadda waxay ku taalaa dalka Syria waxay hoos tagtaa magaalo in badan hadda TV-yada iyo mudaharaadyada aad ka maqashaan oo Darca la yiraahdo Darca ay hoos tagtaa hadda 40 kilomitir bay u jirtaa magaalada Dimashqna 140 kilomitir bay u jirtaa halka waxaad ka garatay Darca iyo Dimashq baa 100 kilomitir isu jira halka way magaalada Busra la leeyahay oo dhulka Shaam kamid ah xadiidkani waa xadiis sugan oo Nabiga sallallahu alayhi wasallam Khalid ibn Ma'dan baa jamaaca saxaabada ka warinaya waxa uu tilmaamayaa riyada ay aragtay run way hadii Nabiga ay dhashay sallallahu alayhi wasallam nuur buu ahaa nuurkii waxyiga iyo risaaladii iyo diintii uu wadayna dhulka qusuur Busra Shaam way gaadhay oo diintii wata gaadho dadkii waa muslim oo nuurkii baa Ilaahay gaarsiiyay qodobka afraad wa murdicatuhu sallallahu alayhi wasallam hooyadii kadib iyo Thuwaybat al-Islamiyya kadibna waxaan nuujisay hiya Halimatu binti Abi Dhu'ayb as-Sa'diyyah reebani Sa'daha Sa'diyyadu waa qabiilkeedii reebani Sa'd qolal ilaahay ka dhalatay magaceeda Halimatu binti Abi Dhu'ayb baa la dhihi jiray dhaqanka Carabta wuxuu ahaa reer magaalka ilmaha magaaladu waa jilicsan yihiin baa la yiraahdaa waanan aragnaan u maleynaya ilmaha baadiyaha ku soo korayna waa adag yihiin oo 5 jirka xoolaha lagu raaciyaa halkana 16 jirka laamiga laga ilaaliyaa 18 jir baa magaalada lagu qaangaaraa soo saasma waxaan 18 ka yaro dhawaatiin age baa la dhahaa baadiyaha laakiin 10 jirku xooluhu raaca geelu raaca waraabuhu ka celiya habeen barkii uu guuraa libaaxu dhagax tuura marka waxay jeclaan jireen marka ilmuhu baadiye iyo meel adag inuu ku soo koro marka magaalada uu soo galay isagoo adagoo baadiyahana ilmo looma turo marka baadiyaha 10 jir tahay xoolaad raaci adkaysiga baadiyaha waxa keena xoolaha raacday subaxii waxoogay ama caana ama in yaroo soor ah lagu siin ama boosha taqaanaan soor ma taqaanaan banay caawa maghribkii baa waxa biyo iyo cunto kugu horeen subaxa saad u baxdo maanta dhan harsan meesi geedna harsan meesi meel la fariisan meesi ari baad raaci isaga kala fakan ariyaha kale ku darman jidku ka lumi dawacada cuni intaba waad ka ilaalinaysaa maanta dhan saa u dhawaaqaysa u ordayso adoon fariisan baad maghribkii ku iman qofka nolosha caadiga u tahay iyo ilmaha suuxi quraacanaye barqadii ku laba goor celinayee qadada sugi waayaya casarkiina juuska cabaya maghribkiina cashada u soo kaalmanaya inta u dhaxaysana chocolaatadii iyo biskutka raadinaya isku adeeg ma noqonayaan marka baadiyuhu waa laga adagyahay geedaha baadiyuhu iyagoo biyo lagu waraabin bay iska noolaadaan haweenka baadiyaha joogay iyadoo xoolaha la joogtay ilmo intay dhashay soo qaadatay xoolaheeda soo raacata kuwa magaalada joogana waa usbuuc ay jiiftaan marka magaalada jirjireec baa yaala baadiyaha la geen jiray markuu soo caalanugay 4 jir iyo 5 jir 6 jir iyo soo gaadho soo adadkaado baa magaalada lagu soo celin jiray isagoo qayrkii ka adag marka wa murdicatuhu hi sallallahu alayhi wasallam hiya Halimatu bint Abi Dhu'ayb as-Sa'diyya walaqad dhahara waxa ka soo baxay oo laga arkay biwujudihi indaha inta uu la joogay min al-barakati barakiya khayr badan waxa ka soo ifbaxay ma dhahara wixii soo ifbaxay kutubta siiradu ka sheekaysay gaadiidkeedoo dhaqaaqi lahaa iyo xoolaheedoo caana la'aan ahaa Ilaahay baa ugu barakeeyay gaadiidkeediina waa gaadiid talaabo fiican buu noqday xoolaheedina xoolo caana badan bay noqdeen iyadana markii hore waxay u qaadatay dan ay kugu qabatay magaalada intay timid bay agoonta waa laga carari jiray ilma agoona aabihiiba wax laga rabaa iyo wax ku siin markay wax kala weyday waxay istirintay farmanaan noqon lahayd ee la dhihi lahaa magaaladii wax ka soo weyday kan iska qaado dan ay kugu qabatay kadibna waa ku barakowday walama balaqa sallallahu alayhi wasallam markuu gaaray 4 sanawaat 4 jir ataahu malakani
laba malag baa u yimid weli Xaliima Sacdi uu la joogaa fashaqqa sadrahu laabtay dilaaciyeen qalitaan bay ku sameeyeen operation وغسلا قلبه بيدقين ثم أعاده ويكعلي قلبه ما لنسوا أري لا جوجا سوي ويل يربين أري مسمى قلبه لا جوجا أفرجل واحد أفرجل حول الله الرعصر يبارك تقولي إنك أفرجلك حنم علينا يضبك على عليا بمبسوا قوان أفرجلك بمبسوا قوان ونكنا له يقول الله ما هو سلاك با حول الراعي laba nin baa ku soo baxay isagay qabteen markii isaga la qabtay kii kale waa soo cararay reerkii buu soo qayliyo guriga ku soo dhaxdhacay wuxuu yiri ninkii wiilkii yaraa laba nin baa isu qabatay oo in la dilay baan u malayn laba malag bay ahaayeen qalbigu meel wuxuu leeyahay shaydaan ku fadhiisan karo oo madaxa ku la yargari karo saldhig ka yargaran karo tiibay ka saareen waa nadiifiyeen intii yarada la soo socdayba waa ku celiyeen isagoo boor badan oo cidi la joogin baa loo yimid oo taagan intuu soo kacay boorkii iyo ciidii dhulka la seexiyay ku taal waa sababtii reerkooda loogu soo celiyay dagaal qabiil baa iska jiray marka islaantii waxay ka baqday Xaliima Sacdi ahay inaydo wiilkii wali hays la dilo oo dakana qabiil iyo colaad loo dilo waxay tiri marka reerkoodii baan iskaga celin iskaga sameeyay aad iyo raaci lahayd munaasabadii lagu soo celiyay bixi isaga haduu ka kacay dashay markii la yibo xal waayay shaqadiisu iska sii watay rag waa weyn marka wuu ooyay lama dhihin walama balaqa sallallahu alayhi wasallam markuu gaaray 6 sanawaat lixjir maatat ummu hooyadii way dhimatay bil abwaayi meel abwaa la yiraahday ku dhimatay oo bayna makkah wal madiina makkah madiina u dhaxaysa magaalada abwaa la yiraahdo ilaa 120 kilomitir bay madiina u jirtaa madiina u dhowdahay taban madiina iyo makka qiyaastii waa 420 kilomitir waa Nairobi iyo Mombasa almost Nairobi iyo Mombasa way ama waxyar bay isaga dhow yihiin 420 way makka iyo madiina meel 120 ilaa 150 jirta madiina iyadoo madiina ka timid oo abtiyadeed soo salaantay oo soo noqotay ay halka ku dhimatay abwaa waxay u dhowdahay badar bay u dhowdahay meeshii badar leeyahay dagaal ka dhici doono meel agteeda way fakafalahu jadduhu awgi ba kafaara qaaday oo mas'uuliyadiisa la wareegay Abdul Muttalib awgi Abdul Muttalib baa lixjirkiiba la wareegay aabana uma dhalan kuma soo gaadhin ifka hooyana lixjir buu ku waayay wala adkayn rabaa ilmaha abi hooyo soo koriyeen waxa laga yaabaa mayac inuu noqdo laakiin midkaan abihi nololna ku soo gaarin hooyadiina aan soo calfanin qub iyo qacay wax walba iska celi waa laakiin booskii abihi awowgii Abdul Muttalib baa u galay walama balaga markuu gaaray hadana sallallahu alayhi wasallam 8 sanawaat 8 jir markuu gaaray 2 sano kadib tuufiya jaddu awowgii baa geeriyooday Abdul Muttalib awowgiina 2 sano markuu hayayba duqi qalaf waa dhintay wakafalahu ammuhu Abu Talib adeerkii Abu Talib baa mas'uuliyadiisa iyo kafaaladiisa iyo gacan ku hayntiisa la wareegay Abu Talibna waa Ali abihi radiyallahu anhu warda Ali ibn Abi Talib Ali radiyallahu anhu warda abihi waa ولما بلغ مركو غاري صلى الله عليه وسلم 12 لبيه 12 مركو غاري خرج به عمه أذيركي بالله بحي والله صفري أبو طالب إنها إلى الشام ولا صفري مكة لقى صفري كان عسب على هذا لبيه 12 ويه انت الله سبحانه يا متقنان بعدي الله لغين يا قادي لما صار هذا هذا ركتان جزيرة دنا buuraheedu geed xataa kama baxo waa dhagax qalafsan bil baa la sii soconaya 12 jirka bil safar u galaya oo dadka waaweyn la socdo 12 jirkeena ka waran toonka hadii loo lugayo dhaxdo fariisanaya talaatoonka uu lugayno halkan dhaxo dhow fariisanaya waa 12 jir safar ganacsi ah oo bil sii safraysa bilna soo soconaysa dhulka dhagax iyo buuraley ana lugaynayso raacaya way afar jir buxoolo ku raaci jiray isagoo 12 jir maxay u sheegay socod
waa adadkaaday ninkaas. falamaa balaquu markay gaadheen busra, meeshii busra ahayd markay gaadheen ee nuurka laga arki jiray, ra'aahu waxaa arkay baxiira raahib. baxiira waa magaciisii, raahibna waa naanaystiisiioo raahib haddii idinku wax kala garan maysaane baadari ahaadheh. ereyga raahib baadari waa magaciisa. baadarigii baxiira la dhihi jiro oo kristan ahaa, baqaayaa nasaaradii wanwanaagsanaa ahaa, diintii horena wax ka yaqiinay, ayay soo agdegeen xilli galab iyagoo safara. markaa xaggee la tegey? syriyaa la sii marayaa, shaam bartankeedaa la sii marayaa, ilaa masjidul aqsa iyo qudus agteedana waa loo socdaa. markii halkaa la joogo dadka degani waa kristan, xagga qudus marka loo dhowaadana yuhuud baa degan. markay goobtii degeen oo ay galabnimo ahayd oo gobolkii dhacay baa ninkiibaa soo degay. waxyaabaha u soo baxay u muuqday, kitaabkii anjiilna wuu yaqiinay, ilaahay nabi ciise siiyey, ee nabi iman doona wakhtigiisii la joogana wuu qiyaasayey. astaamihii nabigii imanayay baa uga muuqday. galabtii buu xarkay. galabtiibaa dee markii ilmo yar la yahay, idinku geeljiro maydaan soo marin. geeljiruhu xoolaha marka la raaco, ragga waaweyn meel bay iska fadhiistaan. 10 jirada iyo 12 jirada baa weelka loo dhiibaa, la watee lagu maala caanaha, alaabta la wata isagaa la saaraa, faaska wax lagu guraya isagaa garabka loo saaraa, geelana isagaa soo rog la yidhaahdaa. ragga yaa la rartaa kan ugu yar, yaa lagu shaqeeyaa kan ugu yar. dhaqanka baadiyuhu waa iska dabiici. saarka waxaa arkaysaa baadiyaha markaa soo marta geeljiraha, habeenkii baad geel soo mari, geel dhinaciisa meel roob da'ayo 10 jir taagan oo geelii celinaya, hadduu tagana waa la garaaci, baad u tegaysaa. ninka saa ku soo koray waa ka adag iyo wiilka jallaatada cuna. wiilka jallaatada derbiga ku dhuuqaya la dhoobdhoobay waa ka adagya. waxbaa shaqaa lagaga soo tegay, awrtii iyo in la kala xiro odayaashiina geedka hooskiisii baa la fadhiistay. markuu yimid hooskii baa ka buuxsamay. hooskii meel laga fadhiista ma laha, waa qorax. dhinacii kale qoraxdaa markuu iska tegey, kanna meel kore uu degan yahay buu ka fiirinayaa martida timid maxay yihiin. hooskii baa wareegay. ninkii waxbaa uu soo baxay dee habeennimadii waxyaabo kale uu fiirfiiriyey, uu soo degay, waa u yimid. odayaashiibu iska waraysto, waxay ka timaadeenoo maxaad ahaydeenoo sidaa u socoteenoo keed ahaydeenoo. isagu wiilka yar buu dantiisu tahay, kan waxbuu hubsan rabaa. nabigu calaamad buu garabka bidix hoostiisa ku lahaa. saasuu marada ka yidhi, calaamadii buu arkay. wuxuu yidhi wiilkan yaa u xiga, wiilkan yarka dad yaa u xiga. adeerkii baa yidhi aniga. wuu u yeeray marka, xagguu geeyey. wuxuu yidhi wiilkan orda celi. maxaa dhacay? haddaa horey u socoto nimanka yuhuudiga kaa horreeya waa niman xasad badanoo way dilayaane orda celi buuri. war maxaa dhacay? waraa wiilkan celi buuri aniyo. waagaasna dee xilligan dadkan waa la yar rumaysnaayo, niman diinna wax ka yaqaana. carabtu dadkan way u aqoonsanay dad diima wax ka yaqaan inay yihiin. adigu lama haya faahfaahinta wixii intaa ka badan ee uu ku akhriyey. waa soo celiyey. fataxaqaqa fiihi, wuxuu ka hubsaday ninkii baadariga ahay sifaata nubuwati, calaamadihii nabinimaduu ka hubsaday. fa amara cammahu, adeerkiibuu faray biraddihi inuu dib u celiyo. halkan ka celiyo. kiristaanku ma xasad badnee, nimanka yuhuudda waa niman xasad badane. celi buu yidhi lafihiisa inay isku dilaan bay isku dayayaan. farajaca waa soo noqday. duqi intuu raashinkii iyo alaabtii iyo badeecaddii lasoo gadan lahaa rag kula dardaarmay buu halkii kala soo lugaya mar labaad. nabad baa maka lagu yimid, wuu daalay iyo dhexbaa la fadhiistay, lama dhihin. walama bala sal slam markuu gaaray alkhaamisata cashrata, 15 jir markuu ahaa, kaanat waxaa dhacday xarbulfujaar, dagaalii xarbulfujaar la baxay bayna qurayshin wa hawaasin. quraysh waa dadkii maka deganaa, reer hawaasinna waa nimankii deganaa magaalada taa'if la yidhaahdo. taa'if iyo maka qiyaastii hadda waxay isu jiraan 70 kilomitr. laba qabiil bay ahaayeen oo qabaa'ilka waaweyna. dagaal la isku baaba'ay
oo akhyaartii iyo ugaasiyadii iyo salaadiintii iyo dagaalyahankii in badan oo kamida ku baaba'een baa dhacay sida dagaalkii Madiina Bucaathe la isku baabi'i doono waaga kadib marka dagaalka qabaa'ilku marmar baa waagi hore waxa dagaal qabiil waxa uu xun moogtay dagaal waxa uu xun dagaal dad is yaqaan hebelo ka cararin ma yahay cararin baa la isdii dagaalka dadkii aan isaqoonin moogtahay xabada waad ridi waad iska carari hebelo cararin hadii lagu dhahan laakiin meel aad cararta ma laha rag is yaqaano maalinka carartay magaran waa lagu gabiyo taariikh waa ku gali kadib dagaalkaas dhacay markii laga soo kabtay dagaalka laga soo laabtay 4 bilood meelahaas dagaalkaasi wuxuu ku aadanaa bisha Rajab meelahaas ku aadanaa ama horaanteedii ama bishii ka horeysay ee Jumaada al-aakhira aakhirkeedii buu ku aadanaa bishii Dhul-Qa'da ee bisha xajka ka horeysa marka la gaaray 4 bilood meelaha ay ka soo wareegtay baa waxa ka dhacay Maka waxa ka dhacay nin reer Yaman ah waliba tuulada Zabiid la yiraahdo ka yimid baa badeeca keensaday Maka nin odayaashii reer Maka kamid ah Al-Aas ibn Wa'il la dhihi jiray baa xoolihii waan ka gadan yiri oo ka qaatay kadibna lacagtii u diiday warbax bulshada maliye ninkii odayaal Quraysh u dacwooday wuxuu yiri war ninkan waa dhacay hal iga qabto waa laga qaban waay ninkii Kacbada agteeda u istaagay oo intuu meel dhagax ku istaagay wuxuu yiri war yaa iga qabta ninkaas rag dhowr ah oo u badnaa qoyska nabiga ka dhashay reer Bani Haashim oo 3 nin oo labadaba Fadl ibn Hebel dhijray ku jireen baa isbalansaday nin baa gogol dhigay Abdullah ibn Jud'aan la dhihi jiray gurigiisu cunto ku sameeyay waxay ka wada hadleen ninkan cabanaya waxay ku heshiiyeen ninka in la garab istaago laakiin isaga kaliya ma intoodii waxay isku dhaarsadeen qof kasta oo Maka lagu dulmiyo inay garab istaagaan nabigu isagoo dharan yaro 15 jira buu ka qayb galay waxa lagu heshiiyay nin kasta oo la dulmiyo ama reer Maka ha ahaado ama dadka martida ee safarta ha noqdaane in la garab istaago cidii dulmidayna looga qaado wixii ka qaatay heshiiska markay ka soo baxeen shirkii way soo dareereen Aas ibn Wa'il baa loo yimid ninkan xoolihiisa halka dhig baa weyn ويشرت كي وحالي الكورن تاعي الكادي أنه تاجن هل كان تذكر دلمين ميزيدي وكسوق هذا وكوادا بالنبي يقولي دون صلى الله عليه وسلم وحكستها الوجود بدل مال انت هذه الإيران كقرب كلا يسبهاي سجاي وهشيس كاس كم بدشين هذا هذه الإيران هذا كلا كقرب كلا هشيس اللي هو جاري يدك كدلمنا لو جارنا وانجلي هل كعثيرة مبادئه قف كدلما ولا جرب يستاجه ولذلك مركل لو وحيودي خديجة وعبصة سوا عبصنا يوجد وحكوتري إلهي مرنا كحمين معي وايو وحكمت المامه قفك دولمان واتقرب استاكتا واتقرب استاكا قفك دولمان وحلو بحيو ثم شهيد صلى الله عليه وسلم وحقوب كاها حلف الفضول دور كنين فضل لديه تشري يشيس قودي اسبحيسي قودي وكصاب سنة لنصرة المظلوم dadka dulman in loo gargaara ku saabsanayd buu kamid aha ولما بلغ صلى الله عليه وسلم markuu gaaray الخامسة والعشرين 10 sano kadib تزوج خديجة وقوسي رضي الله عنها وارضاها قصية صوبتي مناسبتي سفرية ganacsiga ka horeeyay sababay inuu guursaday laakiin uu ka tagay طبعا خديجة markaas daahana way ka weyneed qof dumar oo garoob ay nin hore kala tageen way ahayd 2 ilaa 3 caruur oo yar yarna ay ka dhinteen ولما بلغ صلى الله عليه وسلم مركو غاري 35 صدن يشنجر 10 سنه كدب كعبدا لا دميي وحبا دعايو كعبدا دنتي قريش waxay go'aansatay inay dib u dhisto markay dib loo dhisayayna waxa la yiri xoolaha la ururiyo xoolo ururintiina shardi baa lagu xiray waa xoolo xalaal in la isu keenaa la yiri dadkani ribo waa laga shaqaystaa qamaarka waa laga shaqaystaa
dadka waa la soo dhacaa iyo boolida waa la dhacaa waa la iskhiyaamaa dad waxyaabo badacsan saaxiri iyo sixir kuwa ka shaqaystaa jira kuwa dumar oo jirkooda ka ganacsadaa jira wax badan oo xaaraana laga shaqaystaa laakiin waxaa la qadariyaa oo la rumaysan yahay beydkan ilaahay waxaa la yidhi waa in xalaala keliya inaan sukanno shilin xaaraana nagaga darina idinku ma taqaanaane markii waagii hore qaaraanka la ururinayo an waxaan soo gaaray baadiyaha waxaan soo gaaray qaaraanka baadiyaha la ururiya waxaa ka mid a caanaha iyo cuntada waa la ururiyaa markii reerka macallin quraan uu yimaado nin safaroo macallina la qaban meel baa la dejin caruur baa dugsi loo dhigi intuu wax ka yeelanayo habeenkii reerka caano laga soo qaadi isaga iyo arday badan oo ku jilan dadka sidaasa caanaha loo qaadayo waxaan soo gaadhay dad laga boodo oo markii gurigooda lagu soo aada dadka ugu xoolo badan la gara mari maxaa dhacay markaad tiraahdo hebel xoolihiisu xaaraan wayaa lagu dhihi xoolihiisu waxay ka soo jeedaan xoolihii Soomaalidu kala dhici jirtay geelina kala dhici jiray ka soo jeeda xaaraan way Nairobina waxaa jooga ninkii inuu xajiyo damcaye qaraabadiisa qaaraan ka qaatay waayo xoolihiisoo dhan waa xaaraano xalaal ku xajiya ma hayo waan xoolo badan yahay Nairobi waay marka xoolaha xaaraanta waa dhib badan yihiin moogtahay gaalo iyagoo gaalo oo asnaam caabudaya ay beedka ilaahay xaaraantaan ka dayna leeyihiin kadib hala dhisa markii la yiri kharashkii waa ku filaan waaye kacbadii meeshii halkay duntay lama gaarsiinine in baa laga tagay sawirka kacbada TV-ga markaad ka aragtaan markii afar geeska dhisan aad aragtaan darbi yar oo cadow wareegsan soo ma aragtaan halkaa darbigu ku joogtay kacbadu intan ay ka dhigeen hadda ay tahay maxay uga dhigeen kharashka ku filaan waaye marka halkaa marayaan halka kharashka inuu ka go'ayo intan aan ku ekaysiinay dhahan marka intii kala marka la soo dhisay dhagixii aswadka meeshii la gelinayay la diyaariyay waxa la wada rumaysan yahay dhagaxaas ugu fadli badan dhagixii kacbada iyo dhismihii waa laga wada qayb qaadanaya qabaa'ilka yaa dhagaxa meesha gelin bay noqotay qolo walba waxay tiri annaga waa la ismari waaye waa lagu heshiin waaye waa la isu keeni waaye in la isdilay noqotay oo dhiig daato halkaa markay marayso yaa bakhtiyaa nasiib iyo qorituur baa la sameeyey si kala ah waxaa lagu heshiiyey soo halkan ma fadhino goobtaa la wada fadhiyaa soo halkan ma fadhina haa qofka u horeeya albaabka ka soo gala aan talada wuxuu yiraahdaa yaallo inana aan kala badbaadno lama yaqaan ayaa soo geli dooradii oo qorito bakhtiyaa nasiib wey muxuu dhihi doonaana lama yaqaan waa tala fiican baa la ku kala badbaadayno xalna noqon karto aan ahayn taasuu tilmaamo ikhtalafat quraysh waxay isku maandhaaftay isku diiday fii man yadacu alxajar alaswad dhagaxan madow qofka dhigaya makaanahu booskiisa markii la isku diiday baa lagu heshiiyey qofka u horeeya albaabka ka soo gala aynu go'aansanna wuxuu yiraahdaa aan qaadano qof alaale qofku yiraahdo hebel adigu saarna ha saaro inta kalena aqbalan waaye nabiga ka soo galay sallallahu alayhi wasallam hadduu soo galay waxaa la yidhi hawshaasaa taagan wakaana warmaha iyo seefaa la isu wada haystaa intana lagu heshiiyey tala keen wuxuu anaa tala idiin haya go'an maradan dhiga qolo walbana qofa soo saarto hareeraha ha la wada qabto meesha ha la saaro sidii baa la yeelay markii meeshii la saarayna isagaa ku riixay intaasaa dagaalkii ku dhammaaday faxakama baynahum wuu kala xukumay waa kala saaray ولما بلغ صلى الله عليه وسلم مركو غاري 38 صدن يسديتير مس سنه انو دمرد الى نبينimadi bisa inoo ka dhiman sideed iyo soddon markuu marayo taraadafat alayhi waxa isaga daba timid oo si isdaba jooga uu soo dhacaysay calaamatu nubuwati astaamihi nabi inuu noqonaya baa soo badbatay waxa soo batay dhagax buu soo agmariyo salaami isaga ma garanayo dhagaxan salaamayo wuxuu ka wado geed buu soo agmariyo geedkii baa laga salaami
waxbaa ku soo badbatay. Wataxadatha biha waxaa ku haasaaway alruhbaanu baadariyadii iyo walkuhaanu faalalowgi. Faalalowga ma taqaanaa? Iyo suxarada. Kaahinka iyo saaxirku marna way isgalaan, marna kaahinkaa ka guda weyn oo saaxirku qayb kaahinka ka midoo noqon. Kaahinka kuwa faaliya, faalka ma taqaanaa? Dhulka xariiqa waa kaahin. Kuwa jimanka la shaqaysta ee qalaw kaga siiya waa nooc kahaanada ka mida. waxaa kahaanada ka mida kuwa kitaabka daya kitaabka roga yiraahda ee xarfaha iyo wax eega igu garan maysaan ee deyrabig iyo awfaaq iyo baliya baaska haysta. waxaa ka mida kuwa xidigaan eegnaa yiraahda nooc kahaanada ka mida way. waxaa soo fara badan baa la isku yiraahdaa kuhaanta tan iyo saxarada soo galaysa. waxa laalay wixii jiman iyo baliya baas la shaqaysanayo dhan baa warkii la isla dhaxmaray waa soo baxay, calaamad baa muuqata, nabigii baa soo baxay, astaamaa la arkay. walama balaga sallallahu alayhi wasallam markuu gaaray at-taasicata wa-30 soddon iyo sagaal kaabigaan u soo galay soo maragtaan. xubiba ilayhi waxaa la jeclaysiiyey alkhulwatu inuu dadka isaga dhexbaxo meel gaara. dadkii haddaad dhex joogto soomaadan arag markay hawl kugu furan tahay aad wax ka fikirayso eed waxal u raadinayso, haddii kolba qofku salaamo kolba qofku la soo fariisto uu kaa qasi soo maha. waxbaad rabtaa inaad ballaangarayso, waxbaad rabtaa inaad isku dubariddo, waxbaa tash kugu furan yahay, waxbaa kugu guuxayood garan laadahay. markaasoo kale keligii cilladay ku fiicanta. bal inta wixii aad yar kala miirayso adoo lagula joogo oon lagaa qasin hal mar bay dhacdaa, lana dadkuna soo jeedaan. marka ayaa garanaya markaa salaada ku jirta waay. salaada ku jirto waad joogtaa, dadku waa la soo jeedaa, garbahagaa la taagan yahay. laakiin hawl haddaad gashood fikir iyo balaan gasho dee cidna kaa qasi mayso. waxaa kaa qasi karta salaad kor loo akhriyayo imaamku gafo. imaamku markuu gafo xogay waad soo hirtay sooma. liiskii deymaha waxaa laga yaabaa dadka qaarkiisida ka dhacda intuu xasuusta dadku deymaha ku lahaa oo dhan dukaanleyda isagoo isugayn waraaq iyo qalin la soo baxa uu qoro dhag. waa meel adu qofku markuu wax aad uga fikiraya waxaan rabaa inaan iraahdo inaan laga qasin buu ku fiican yahay. haddii meesha dadku kaa qasayaanna inaad gaar uga yarbaxdo. xubiba ilayhi alkhalwatu fakaana yakhlu wuxuu gaar ku noqon jiray bigaari xiraa, godka xiraa la yidhaahdo. godka xiraa la yidhaahdo hadda maka dhexdeedu ku yaallaa. tanciim buu u dhow yahay weliba meesha laga cumraysto iyo dhinacan xaafadan zaahir la yidhaahdo. markii xujayda la tago maka la tago wuxuu u dhow yahay aag xujayda Itoobiya la dajiyo buu u dhow yahay. waa buur dheer dhaladeed. maanta haddaad aadaan dhaxdaa ka soo noqontaa daasho buurtaas. iyagu laakiin buurahaasay deganaayeen oo ku noolaayeen oo xoolaha ku raaci jireen. baarkaa la tegi waa laga soo noqon, waa la tegi waa laga soo noqon, waa la tegi waa laga soo noqon. waxa weyn kuma ahayn. halkaas waa halka waxyiga nabigu ugu iman doono sallallahu alayhi wasallam. hadda qolyaha farfadhiyo wili sugaya waxay ugu yimaado. nabi maxamed baa waa isagoo halka jooga waxa jibriil u yimid qola ilaa hadda jibriil ka raadinaysa oo dhex farfadhida. fakaana yakhlu wuxuu gaar ku noqon jiray bigaari xiraa shahra ramadaan, bisha ramadaan. yataxanafu fiihi wuu iska cibaadaysan jiray, cibaado fikir iyo adduunkan iyo ilaahay abuuraya buu cibaadaysan jiray, wax kale ma hayno. wa qabla mabcathihi intaan la soo saarin bisittati ashhurin 6 bilood. hadda 39 baan maraynay, sanad baan inoo dhinnaa. sanadkii 6 bilood baan haddana ka gallay. 6 bilood markay ka dhiman tahay 39 sano iyo 6 bilood uu jiro kaana waxyiga u yimaadaay manaaman hurdo iyo riyo ahaa. wa kaana laa yaraa ma arki jirin ru'yan wax lagu riyoodo ilaa jaa'at waxay iman jirtay oo arki jiray oo dhici jirtay mithla falaq subh sida waaga baryay oo kaleeto.
riyada marba waad ka shakidaa waxaad ku riyootay waxaan ma aha moogtay marba ka shakidaa ma ahayn waxbuu maanta inuu dhacaya ku riyoonaya caawa waagii markuu bariyo wixii oo sidiisii dhacay waxaa loo diyaarinayay in waxa loo sheegaya saasay noqon doontaa uu rumaysto xadiidkana bukhaari baa min xadiid caaisha iyo keyrkii ka warinayaan waana tan nabigu yidhi alayhi salaam riyadu juzun min 36 juz'an min annubuwa صدر اللحسة الملح لو قيبية النبوة قيب 46 ده أفرتني اللح قيبات قيب كتر أوكي أفرتني اللح لبو قيبي أوكي لبعتني يسد حسانه ما كان لبا كله فتنة أما labadan ku dhufanaya waxaan uga jeedaa sanadkiiba laba ka dhig imisoo noqon imisa way waa 6 biloodna marka 46 bilood oo riyo ahayd 23 sano nubuwada ahayd intee bay uga dhigantaa 46 markii 23 loo qaybiyo wax 6 bilood riyadana 6 bilood bay ahayd saasa looga jeedaa xadiidka sidaas uu nabigu ku noqday sallallahu alayhi wasallam من البعثة laga bilaabo xilliga nabiga la soo diray ila hijrati intuu Madiina uga hijroonayo uga wareegay ilaa laga gaaro haddana waa 13 sano intii hore 40 sano aynu ku soo dhameynay 13 sano way haddana 10 kano iyadana wuxuu ka dhigay 20 qodob buu ka dhigay maxaa dhacay waqtigaas walama balaqa markuu gaaray sallallahu alayhi wasallam 40 سنة 40 سنة جاءه جبريل باو يمد عليه السلام بالوحي بوكاني من ربه بونا وكاني وهو النبي مركز في غار حراء ماشي قدك حراء هيدا بورتا كذا هذا قرأ هيدا أيو تشوغي دنا ومركز لو يمدنا وحي قال لي سقم الشيقين وحوغي ولا يرعيشي وحوغي قور سغار متقنا وحوغي قور سغار عتيق لغيسي كاسر آخري وحان آخري وحان ما أخرناي يساقنا وليقي وحلا آخري وحلا قرمون آرك اللي قو عليه تيقا مر لبعض قو عليه آخري عليه وحان ما آخري أقانو يري برسد هذا اللي قو عليه كاس الله شيء اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم انت صلى بري ظل صلى الله عليه وسلم نبي انت كذب وحوها يدعو إلى الله الله دتك ويري شري سرا سقرصون 3 سنوات 3 سنة أشونكو آذانها أشون متقنا أشونكو آذان بوها 3 سنة قفوا قرانيو قرابدا قف صاحب أيهين بوهاس ugu sheegi jiray laga bilaabo qof uu sheego waxa ugu horeeyay Khadija wixii xigayna waxay ahaayeen Zayd iyo Ali ibn Abi Talib ahay Ali wiil yar wuxuu ahaa ilma adeer yihiin duqi adeerkii ha uu noolaay laakiin in iskaan waxba haysan oo faqiir oo ha isagana soo koriyay ma nabiga sallallahu alayhi wasallam علي حافظ كل النولا سوير زيد بن محمد بابا الذي شرو أدون كيسيبوها وحرين دونه خديجة حاس كيسيبه هيد حافظ يسوق قبل الله يمرك إنه دعوة بنان كان كشجنا لكن شقالة قرية ما قارسين كو قرية نلتشو قرية نكابل الله بنان كان 10 ردان كآخرنا يا عروتنا إنه ما شجنا مركا ويكل دود باب زومه halkaas ay baasho ka soo kala fakatay 3 sano maxaa qabsoomay aslama saabiquuna alawwalun dadkii soo hormaray hore ayaa soo islaamay mithla khadija oo kale wa ali ibn abi talib oo kale wa zayd ibn haritha oo kale wa abi bakr as-siddiq radiyallahu anhum wa ardaahum iyo waqayrihim rakalaba dad u soo horeeyay islaamka soo galay xulka haba soo islaamay qof walbana saaxiibadiisa sii gaarsiiya leeyahay
hoos baa la isugu sheegaa gaar baa loo wada fadhiistaa dhagta afka la isu saaraa meel cidlaa la tagaa qofba qof buu saa ugu sheegaa warkuna intaa dee tartiib waa baxayaa dad kooxaa la noqday kadib baa waxaa la yidhi ashuunku aadaanka ka bax dadkana u sheego afka furo uma umira sal ly slam waxaa la amray biljahri inuu la dhawaaqo kor ula dhawaaqo fasdac bimaa tu'mar wa acrid can ilmushrikiin inaa kafaynaaka almustahzi'iin balay fasdac bimaa tu'mar caddee oo qeexo ku dhawaaq waxa lagu faray kuwa caytamee afka ka hadlana dheg ha u dhigin oo dan ha ka gelin mogta adigu waxaad rabtay haddaad dadka u sheegto oo khayrkay fidinayso hebel baa hadla iyo mid baa caytama iyo mid baa meel qaan ka yiri iyo xasmacno male mogta baalka waraabaha ruwaaba taqaanaan waraaba u taqaanaan ya labada waa u naqaanaa dheh waxaa la yidhi baalkan xooluhu dadka ka laayaa markuu xoolaha ka dila wuu cararaa waana lacaayaa marka soomaalida waxay dhaheen ruwa wuxuu yidhi ama waraaba wuxuu yidhi niman caydheeyey oon xoolihii ka cunay cagiyo orodna igu gaari waayaa meelahay cacaayu yidhi kaasaa meelaha caytamay waxaad ka dhegaysanaysa nin caytay warkiisa nin caytamay afkiisa isagu ku yaalla af caytamay ninkiisa qofkiisu ku yaalla waxba dhag ha u dhigin baa layidhi amaa dhib inay ku soo gaarsiiyaan innaa kafaynaaka almustahziyiin dadkaa ku caayideena kugu jeesjeesaya af iyo hadal adbadu aad hadlaysaa adaa ka hadal wanaagsane inay dhib ku gaarsiiyaan annaga kaaga filan si fiican dadkula hadal adugu fajahara kor buu la dhawaaqayoo facaadaahu qowmuhu tolkii baa la coloobay tolku si kasta hadday kuu jecel yihiinood ugaas iyo suldaan iyo utahood ka dhalatay waxaynan rabin haddaad keento waa lagu nici tolkan waxay rabaan inaad la rabtaad ku wada socon kartaan waxay rabaan waa khaldaya haddaad dhahdo warwiiliyo edabta daranun baa lagu dhihi marka dambana haddaad ku wadwadana waa lagula coloobiyo waa lagula dagaalami qaama kufaaru qurayshin kadib colaaddii maxay keentay isaga aad waa loogu dhici waayey wax badan waa loo yeeli waayey wax aad u badan waa la yeeli waayey waayo adeerkiibaa odayaasha waaweyn ee quraysha abu aalib nin adagna uu ahaa isagaa mana islaaminoo diinta ma qaadan isagaa la dhaafi waayey cariya agmaraa la yidhi uma qaama kufaaru qurayshin waxay u istaageenay habeen iyo maalinba u istaageen gaaladii reer quraysh bitacdiibi man calimuu qofkay ogaadaan inay ciqaabaan biislaamihi inuu islaamay liyaruduuhum say uga hortagaan oo iga celiyaan dadka can diinihim diinta laakinahum dadkii sabaruu waa adkaysteen wa habatuu waana ku sugnaadeenoo cagahay dhulku xajiyeen waxaa la rabay intii labada garaaco kan la garaaco kan la feedho kan la xiro kan la figeeyo in wax ku dhacaba islaamnimo la waayo kuwii la figeeyey baa ka noqon waaye wadhan waxaa rabtaan sameeya ma dhimasho ka badan baadna gaarsiinaysaan qofku waxaa lagu handadaa waan ku dilaynaa soo maa dhimashada baan diyaar u nahay dheheen maxaad samayn oo kale kuwii markay adkaysteen dadkii qaar baaba adkaysigooda ku islaamoo yidhi war nimankan waxa loo sheegay adaga waxaasoo dhiba waxay ugu sabrayaan adaga dadkani iimaankiisaa lagu adkaystaa la rabaa innaga hadda haddii cagaha dhulka lagu haddii la yidhaahdo amaa diinta laga cararaa nugta waxay sheegaan maraykan bay dhahaan mararka qaarkoode nin caddaana baa xoola inuu qashuu rabay sida muslimka inuu qashuu rabay qolya masaajid ku tukaday u yimid bay yidhaahdaan kaasuu wuxuu yidhi isagoo mindidii wata waree xoolaha kaala ii soo qala nin baa istaago yidhi anaa kuu qaliyana wadi intuu u qalay buu alaabtiisu wato iska sii socday war kan labaadna ii qal orad ragga doonuu yidhi qof kala doono ninkii waa soo noqday ninkii lama socdo mindidiioo dhiiglana waa wataa maxaa soo baxay meesha nin kalaan rabaa buu yidhi war nin muslim oo ii qalaan rabaa imaamkii baa la yidhi kanaa anugu minaan idin tukiyaan islaam ku noqday lafteeda tukidaada tukiyey saa loogama carari jiri marka waagi hore waa la adkaysan jiray sabaru wa habatu dhib badan baa la isla maray wakhti dheer bay qaadatay caqada nabiyu waxay noqotay dad badan baa islaamay
haba iska yaraadaan tiro guud ahaan markii dadka loo eego laakiin tiro ahaan dad tiro islaamay islaamnimadii in la baray rabaan waxay u baahan yihiin madrasa iyo dugsi in loo furay u baahan yihiin nin ragga islaamay kamid aha oo reer Maka oo guri weyn lahaa wuxuu yiri gurigayga dugsi noqon laakiin soo gelitaanka yaan hal mar la wada bixin hal mar la soo wada gelin naftaydu dhibka kama adkaysan karee wili waa la isqarinayaa dadkii ninkii soo galayna waa leena wada arkayaa si qarsoodi ah loo soo gala qarsoodina ha loo baxo halka waxa ka bilaabatay dad nadaamsan oo habaysan oo ismaqlaya oo duruufta nabadgeliye ku xeeran qiimeynaya ninka arqam min abil arqam baa la dhihi jiray halkaas la isugu yimaadaa wixii talaa lagu wadaagaa wixii cashira lagu kala qaataa qofkii cusub ee islaami raba ee bayta la soo dhuumiya la keena halkaas saldhigu ah yar baa loo baxa yar baa loo soo gala nabadgelyada waa la islaaliyaa عقد النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعات كلما سرية قرصون بو بالمسلمين وقبن جري في دار الأرقم نك أرقم للشيء الجريس ليعلمهم سوء أبرا شرائع الإسلام إسلام كشريعة أحكام سلوا برا هل كاساس السر اللوجو من جري ضدك وحيدين تبرنا يان يضو سوء جريتان كلا يسدوا الصعداء لقد لقد ومن يا FBI بقى لقد ومن يا أو NIS بقى لقد ومن يا oo intelligence baa laga dhuumanaya ay leeyihiin Quraysh iyo Arab oo ciidamadoodii iyo ciqaabtooda laga cabsanaya diintana waa la baranaya haddana iyadoon cidnaba wax ku yeelayn baadiintii barashada dadka lagu karlayso wala kala qiireed badna wala kala xisaab badna wala kala iimaan badna وفي السنة الخامسة سنة كشناد من البعثة كمدة نبي حلق الله صادر لغا soo bilaabay afartirkiisii ilaa 5 iyo sanadkii shanaad waa 45 baan marayna هاجر جماعة ضد كوحة قحي ومن الصحابة كمدة با إلى الحبشة وقحي عذابك يدبك بيوتك سوايا بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي عنه وقراضي حفاظا على دينهم دين تودي إلى شنيينه مركي دلك يا عذابك يا عقابك يا دبك كبتي ويأتكي سوايا بيسين دين تودي وغنقن بوحي كقحين مكة دلك حبشة وقحين dhulka xabashida marka loo qaxay ugu badnaa dhulkan Eritrea hadda la yiraahdo area-daas ay u badnayd minhum waxa kamida Uthman ibn Affan wa Zubair ibn al-Awwam wa Abd al-Rahman ibn Auf wa Ja'far ibn Abi Talib faqamu biha waxay ku nagaadeen oo deganaayeen 10 sano 10 sano halka deganaayeen 10 sano kadib oo Madiina la tagay ayay soo laabteen Madiina ka soo dhaceen badankood qaar gadaal u soo laabtay baa jira dhaxda intii sheeka suuqa soo gashay waa la Quraysh way islaantay ma ko dhanba muslim noqotay been inta la fidiyay bay qaarkood soo noqdeen markaas dhibka badan loo geystay وفي السنة السادسة من البعث سنة اللحاد أسلم وحاسو إسلامي حمزة بن عبد المطلب والنبي أديركيه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فعز الإسلام وإسلام كوا حوجيستي بإسلامهما مركي لبود إسلامين إسلام كوا حوجيستي لو أنه أضدك oo dagaal yaqaana oo laga cabsaday ahay labadii markay islaameen dadkii xoog bay heleeno iyaguna ma baqarsanin oo banaanka ay la soo baxeen Umar wali markuu islaamay dadka waa la yaqaana moogta hadda inta naas markii la yiraahdo warka suuqa la geeyo qaar dheeli neeshana jira oo warkii loo sheego banaanku sii aadi waxba kuma qarsan kartid isna waxba ma xajin karo wuxuu yiri marka nin buu ku yiri war nimanka reer Quraysh magaalada degan yaa ugu warqaad badan buu yiri war hadalka wareejintiisa yaa markow hebel baa la yiri hebel wuu yeerayo ogo yiri waan islaam Maxamed baan rumeeyay wuxuu rabaa inuu la wareego waa ninkii markii wadaaqay war ma maqasheen war ninkii waa dul reeyay adiga marka dadka qaar waxa jirta dadkaas waxaan dhahnaa hadda waa journal dadka wax ku qorta suuqa markii war in la geliyo la rabo inagu waynu isnaqaanaa qof baa lagu taabtaa isaga loo ordi isaga halkii Daily Nation iyo journalkii idaacadii ku geli qolo walba weeyeen dabeecadaas wax isku og ma jira ayaa gacanta taagay arintaas ku gacanta taagay bala isku jira arin fiican maaha وفي السنة السابعة من البعثة سنة التضوات البعثة مركز لقارينا تعاهدت قريش waxay ku ballansaday ala qati'ati bani hashim
reer bani haashim xiriirka in loo jaro la cunaqabateeyo ilaa an yuslimuu ilayhim nabiy nabiga inay ku soo wareejiyaan ay dhiibaan maahane sallallahu alayhi wasallam wa katabuu bidalika heshiiska waxay ku qoreen saxiifatan waraaqiya qoraal baa laga dhigay وعلقوها وحين كحرين في الكعبة dhexdeedana lagu xiray si aan qolana ballan uga bixin nabigu qoysku ka dhashay عليه الصلاه والسلام inta islaamtay intaan islaaminba waxay isku raacsanaayeen inaan la taaban karin jirkiisa ninkii tin ka gooya malagii baa galabay marka ninkii wax sameeyaba rag badanna way lahaayeen oo dagaalka soo jeedsanin ninkii juuq yiraahdaba gacan baa lagaga shaqeynaya iyaguna dadka maka ugu culculus ugu badan ugu adag bay kamid ahaayeen xamza xataa islaamkiisii maalin isagoo ugaar iska doontay oo duurka jira loo sheegay wiilka adeerka u ahayd nin quraysh oo si xun u galay caradii buu ku islaamay ninkii buu u yimid saa isagoo kacbada ag taagan buu qaansadu watay falaadhi buu madaxa kaga bilaabay wuxuu car maanta la hadal islaga bilaabo saacadan aba diintiisa galay ficilladii waa gelisay rag laga cabsaday haayeen marka waxa la yiri in la isu bahaysta mooyeen arintana qoladii yar dagaalyahan yar adag isbahaysi haloo abuuray waligeed way soo jirta hadda ma abuurmin dawladahan coalition-ka sameynaya ciidamadan isbahaysiyada meelaha ku weerarayo kooxo yar yar isu bahaysanay Soomaaliya arag fiir Quraysh qabaa'ilkeedii oo dhan nimanka reer Bani Haashim waa niman adag ama aan cunaqabatayno go'doominno ama waa inay soo dhiibaan Maxamed dawladii la rabo in la dagaalamana isbahaysiga kadib in la cunaqabateeyo cunada lagu yareeyo raashinka lagu yareeyana waa un la kala waasiiciye dagaalka qaababka dagaalka dunida soo jiray kamid ah ha u qaadanina marka dawlad baa la cunaqabateeyay isbahaysi baa yimid wax dunida ku cusub maaha way isbahaysteen qoladan waxa la yiraahdaa go'doomino وفي هذه السنة نمك ريب بني هاشم سيدي أركان اعتزل بنو هاشم بن عبد مناف qoyska reer bani haashim ee nabigu ka dhashay waxay dhaheen sida haday qoraysh ku aansatay ballanta kala qoratay kacbada ku xirtay yeenan cidla inaga herin oo meel banaanka kolba qof laga herin inana gees aan u baxnay gees bay u baxeen hal qolo ilmaadeer ahaayeen afar oday oo wada dhashay ahaayeen bani haashim bani al-muttalib bani abd shams iyo bani abd dar afar oday oo walaal jiribo walaalay ahaayeen reer bani al-muttalib niman la yiraahdo waxay dhaheen nimanka meesha lagu go'doomiyay ka harimeen iyaga waxay qabaan baanu la qabi muslimna ma og laakiin ficilladii iyo reernimadii waay wa tabi'ahum ikhwanuhum walaalahum bani al-muttalib ibn abd manaf raacay ma'a abi talib bay raaceen ila shicbi abi talib dhulka waa la kala lahaa dhul laba buuro dhaxdooda oo laaba oo abu talib lahaan jiray ilaa dhulkaas aynu leenahay nabiye xagaa ina dajiye iskuna waardiin faaqamu bihi 3 siniin 3 sanay sidii ku jireen 7 8 iyo 9 cunadii baa ka dhamaatay dadkii way baabeen xooluhu xataa aaguma foofi karaan in laga dhacay ka yaabayaan qabiil Soomaaliyeed waxa jiri jiray afar qabiil u daris laha 3 bay culuubeen oo dhiig dhaxmaray hal qabiil bay nabad ahaayeen xagga laga soo wareegaa qabiilka nabada loo soo dhaxmaraa waxba laga dhaca waxba la yeelaa odayaasha intee dhalinyaradii shiriyeen bay dhawriyaa loo duceeyaa walbaabka naga soo xidha nin baa aniga uu tagay qolada nabada ahayn buu nin ka soo dilay albaabka soo xidhay sama aga waxa naga soo geli kara waa marka dhinacyadoo dhan baa ka xiran nimankan 3 sano kadib baa rakalaad rag baa adkaysan waayay إلى أن سعى وحاول أولوليي المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد وحيقول أوليان كشقيان في نقض الصحيفة قرالك بلنتها إلا بريو مركي قوان سادان أي بلنتي تشبيين بانبيغان الله الشيغي وحيري ورقدنا يا صوف وحال نقطة ورقد يا صوفري warqada heshiis axad la galo kacbada ku xidhan soo furi kara nabiga wuxuu yiri meesha waxa kuma qorna awoor baa cunay orday wala tagay awoor baa cunay wiil hatta inta gaar ahaan intii bismillaah iyo ku qoray oo dhan awoor baa ka cunay fa kharaja banu hashim banu muttalib waa ka soo bixeen
min ashicbi laabka iyo meeshii ay ku jireen fii awaakhiri sanati taasica sanadkii sagaal gadaashiisa wa fi sanati alcaashirati min albictha sanadkii tobnaad marka la soo gaaray maata abu aalibin adeerkii abu aalib oo isku tiirsanaabaa dhintay waa yeelnaha uma maatat khadiijatu maalmo kadibna khadiijaa dhimatay radi allahu canha bacdahu abu aalib kadib bialaaati ayaamin 3 maalmood 2 tiiroo adagoo nabigu ku tiirsanaa buu waayey sal ly slam faxasina rasuulka al slam waa murgay limowti baa geeridooda xusnan shadiidan murugo adag sanadka caamulxusni sanadkii murugada iyo tiiraanyada loo bixiyey wanaalat qurayshu minu waxay waxyeello gaarsiisay sal nabiga maa lam tanalhu waxaynan ka gaarin oo u geysan karin fii xayaati cammihi abi aalib inta adeerkii noolaa waxaan la yeeli karin baa hadda la yeelay wa fii shawaal min hadihi sana bishii shawaal ee sanadka waa bishii tobnaade ee sanadkii tobnaad marka la joogo caqada rasul sal wuxuu guursaday calaa caaishata loo meheriyey wahiya bintu 6 siniin iyadoo 6 jira walam yabni biha lamanaasi aqalgelin ilaa fi sanati اluulaa min alhijrati oo iman doon sanadkii hore hijra iman doona maane wahiya bintu 9 siniin 9 jir iyadoo ah shucuubtu waa kala duwan yihiin shucuubtan haddaad eeshiyada qaar ka mid a haddaad tagto afghanistaan iyo bakistaan iyo wadamada durbana waa waayeelaan durbana waa weynaadaan gabadha soomaaliyeed ee 16 jirka ah iyo 8 jirkooda iyo 9 jirkooda isleed shucuubta qaar durba kortaa jira durbana duqowda inagu koritaankeenna daaha marka dambana waxaa malaynayaa dadka waa yar jiitanaa oo afrikaanku waa sidaa guud ahaan hadda madaxweynaha ma taqaanaan 92 jirka Robert Mugabe 92 jir weli waa madaxweyne waa ordaya waa safraya waa lugeynaya waa khudbeynaya dadka kalena 70 jirka farfadhiya oo ka cilaab وفي شوال من هذه السنة إسلا بشعصو تزوج نبي قرسي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها وفي هذه السنة إسلا سنة كاس وخرج النبي بحث إلى الطائف طائف بعد 400 كيلومتر جرته يدعوهم إلى الإسلام إسلام كسوه يريه فأبوا كديين هرتكو إسلام وقعدا ما ينده نضاف وآذوه وعد بينه عيال كنت يكون درين ولا نحتوري إلى اللغة نبيه كذا دعي كبيه سديق بوحيه فرجع وكسر الله مهموما يسقو آذو مروغيسا فثبته الله بأمرين لما رموت بإلهي كسوغي أرسل إليه ملك الجبال كلينا ما هي نقر ربو يرقب الله سعودي الصحابة ملك بورها الله صدري وحالي لكون كل بكبدا هذا ربط الله وضع بورو ده حريرها كان كد بولينا ولقيت بديب الله عرك معي وحولي ماي إلهي وحان كرت شيء إياه إنه نبر كودا كسو صارو كو الدين تاس الله عابده الدين دفاعه وأسلم على يديه وحاكسه إسلامي مجموعة كوح من الجن كمدة وأيضا سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن صلاة صبح ويتكني قرآن كيف مقلين ورتدبع كل عي جنك واجه ردتك وعدمها وحيكوها يستين انت يذكر فلان العرك أكتي ستقام بشنقر كملايكتي الشيكادو ذا لقيسين جرين وحن مقاديرتي الله دري كشيكين أيان ee sanadka loo dhiibay bay dhageysan jireen markaas ay dadka ku harowsan jireen waxa dhici doona marka ninkii jinka la shaqeeyay kaahinka in la caabudo ku dhow ahaan jiray albaabadii baa laga xiray waa keenay waana kuna naqdu minna maqaa'ida lis-sam fama yastami' al-an yajillahu shihaban rasadan dab duulayo la soo gamay xidiga dabahan loo soo gamay baa ku dhici ariya ag maray noqotay kadib intay shiraan odaygoodii wuxuu ku yiri waxaad yeelaysaan waxba dhulka ka jira arintan sababa ee dunida hal la wareego hal soo raadiyo wax ku cusub adduunka qolo koox oo sahankii oo ordaysa baa nabiga salaad subax tukanaya bay soo dardareen war kaalay war wixii cusba waa kan ee kaalay qayb oo islaameenba inna sami'na qur'aanan ajaban yahdi ila ar-rushd فآمنا به ورمينا ولا نشرك بربنا أحدا ثم دخل مكة أبو صوغلي في قريتان كده مكوات كبح حدايا في زهد كسو قل له يدبال الرواوي زهد كسو قل مكة في جوار المطعم من عدي نلا إلى مطعم من عدي بام مغنقلية سي وري أنا مسؤول كاه عريا تابت
soo kaxeeyey oo wiilashiisiina soo kaxeeyey iyo raggiisii oo dhaxdayada gal yidhi oo kacbadii ku wareejiyey wuxuu yidhi anaa damaanad mas-uulka amnigiisa ninkii taabtaan iyo aniga wey waa kan nabigu uu leeyahay maalinkii Badar Mut'im ibn Adi wuu dhintay marka waxyar kadib wuu dhintay maalinkii Badar maxaabiistii Quraysh laga qabtay waa ninka uu nabigu leeyahay law kaana al-Mut'im ibn Adi hayyan thumma kallamani fi haula'i in taraktuhum lah ninka haduu nool yahay maanta oo intuu yimaado dhira dadkan siida oo u sii wada deyn laha muxuu hayaa abaalkiiba u hayaa adiga laakiin muslim baatay qofkii waxay tarana abaal ma hayana waxa saxmiya صح بعد أبالنا الله وفي هذه السنة وفي السنة 11 من البعثة سنة كوية طبناء البعثة عرض نفسه الكريم النبي وحوبا لنفتيسة على القبائل قبائلك في موسم الحج وقت مناسبة دي حجك كعادة سيدي وهان شريبة مش حجك وابل حجي شري عربتي هوري markii la isii min qabiil baa loo kala deganaan jiray oo qabaa'ilku u tagi jiray oo walilaahi baa soo diray diintiisaan wadaa wariyaa diinta ilaahay garab igu noqonaya oon deegaankiisa u raaca sidaas u dhihi jiray sidii buu yiri faamana bi waxa rumeeyay 6 min ru'asaa al-ansaari madaxdii reer ansaareed kamid ragii madiina ka yimid 6 nin oo kamid ah rumaysay ورجعوا إلى المدينة بيكون نقدان ففشى فيهم الإسلام إسلام كيف كفدي ضد بدن باكسو إسلامي وفي السنة 12 من البعث سنة كلا بيطمنات أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لقى قاضي من المسجد الحرام بالغا قاضي إلى المسجد الأقصى بالغي ثم عرج به قرب الله قاضي إلى سدرة المنتهى جدا تضبط السماء كسر رئيسه jannada wabiyadeeduna ay ka soo hoosteeda ka soo burqadaan fa faradallahu alayhi wa ala ummatihi nabiga iyo ummadiisa ilaahay wuxuu ku soo waajibiyay salawaat al-5 salaadood xilligaas sanadka 12aad inay ahayd bay culimadu u badan yihiin qaar koodna waa la isku raacsan yahay laakiin qaar 5 sano ka hor bay ahayd 4 sano xilliga ka horeysay yirina way jiraan bishaabay ahayd aad loo ma yaqaano laakiin ragu imaamu nawawi ku jiray iyagu waxay leeyihiin 720kii bishii mawlid bay ahayd rajab ma ahayn bileen qoran waa rajab bileen wa fi mawsim al-hajj munasabati waqtigii hajka min hadhihi sana kamida waa sanadka dhamaadkiisii 12aad wa faahu 12 rajulan waxa uu yimid 12 nin oo min al-ansaar ka reer ansaar madiina 12 nin oo muslimiina ka timid بعضهم قاركون ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم dadkii nabiga la kulmay bay kamid ahaayeen fil mawsim as-saabiq sanadkii hore iyo rakale fabaayuhu wa ila ballaman heshiis bay la galeen inda al-aqabati meel buuro meesha ku taala agteeda aqabadu waxa la dhihi jiray jamaraadkan mina ee la tuurto mid baa jamratul aqaba la yiraahdaa taxaga maka u soo xigta waay jamratul aqaba iyo jamratul kubra labada waa la yiraahdaa agteeda aqabada asalka waxa la dhihi jiray buur yar oo kuusan oo taag oo ku tiilay hadda waa la baabiyay dhulka la cunay buuraha la cunay bay ku jirtaa halkaas ay kula balameen fabaayuhu inda al-aqabati fasumiyad waxa lagu magacaabay bay'atul aqabati al-ula tii koobaad baa lagu magacaabay waarsala macahum wuxuu raaciyay Mus'ab ibn Umayr yuqri'uhum al-Qur'aan si uu akhriyo faaslama ala yadayhi waxa ku soo islaamay gacantiisa كثير من أهل المدينة ضد غير المدينة وكاب قبيلة أضياش الصلاة با إسلامي بل الذي قبيلة أنصاري أوسي خزرج كاب قبيلة أضياش با إسلامي انت كان ولد حلقة كهر بيدقال نك اسكو دهان دعايو بعاث للهجري وفي السنة 13 من البعثة في موسم الحج وقبقو سنة كيسة دحية وفاه 70 رجلا تضواتا نباتين لحدا 12 تضواتا كان انت كدن بيسا كبدن ومن الانصار كميد فبايعوه عند العقبة ايضا اسلام ماشي waa lagu ballamay bay'ay la galeen maxaa laakiin heshiiskan kii hore waa ka duwan yahay ala an yamna'uhu inay ka difaacaan ala an yamna'uhu in haajara ilayhim hadu xaqooda u soo qaxo u yimaado inay difaacayaan mimma yamna'una minhu anfusahum wa nisaahum wa abnahum haweenkooda iyo ilmahooda iyo naftooda waxay ka difaacayaan inay isna ka difaacayaan
faakhrajuu lahu 12 naqiiban 12 matalayo wakiil bay u soo magacaabeen faqala sallallahu alayhi wasallam qabaay wuxuu ku yiri antum ala qawmikum kufala idinka damiin iyo wakiilka dadkiini fasumiyad waxa loogu magac daray bay'atul aqabati thaniyati labaad faamara sallallahu alayhi wasallam wuxuu amray xina idin markaas asxaabahu bil hijrati lil madina asxaabtiisa madiina hal aad yiri marka nin walow kuwii xabashi jiray kuwii maka joogay kuwii meel kale joogayba madasheenu waa madiina buu yiri waa qaam saacada isagu iskaga nagaadeen maka yantadiru al-idna ogolaansho xagga alla ka sugayay bil hijrati inuu isaguna baxo waxabasa maahu Abu Bakr wa Ali labada isuga buu radiyallahu anhuma idinka wuxuu yiri aniga Abu Bakr wuxuu aan israacaynaa idan anigu gaara ma qaba wali isug Abu Bakrna maalin kasta buu iman jiro idan kii ma yimid buu dheeshay wajtamaacad quraysh way shirtay markay arkeen xagga inay hooy ka heleen raggeena xagga u sii qulqulayo xoolahoodiina ay ka tageen dalkii ay ka tageen dib badanna la soo mariyay dadkan waxa soo baxday nimanka soo ururayo uu ka daba tagi doonaa isna uu ka daba tagi doonaa ciidan buu urursanaya rag buu urursanaya deegaan buu urursanaya meel uu dabada la galay saldhig buu helay deedakana iyo dambi badanna waynu ka galay ina deyn maayo intuu se tagin marka masax gal laga dilaa baa leeyahay bas madaxa laga dilaa isaga aan dilay dhahan fi daari nadwati bay quraysh soo kulaad timid gurigoodii shirarka lil mushawarati sayuga wada tashadaan fi amri nabi arintiis faajma'u waxay isku raaceen talooyin badan baa la isu keenoo la gadgadiyay markii dambe waxay gunaanadeen ala qatl inay dilaan qolaa waxay yiraahdaan aan xirno waxa la warninkan taageerayaal la waa leeyahay tolna waa ka dhashay habeenimo intii ciidan la soo diyaarsado aan xirna Soomaa xabsiyada waa la jabiyaa Soomaa markaas maxaabiista laga baxa ragiisiyo tulki way isdiyaarin oo xabsiga way kala bixi baa qolo waxay dhahan aan istaafino waxa warninka af macaankiisa Soomaaliya arag ummadoo dhan intuu isku dubarito buu maalinka dambe halka idin ku iman u soo rogaal celin doona aan dilla la yiri yaa dili baa leeyahay ku dhaca reer buu ka dhashay ninka gacanta leh waa la yaqaan intaan iska soo marna 100 wiil oo 100 qoys ka dhalatay hal mar ha ku dadajiyaan waxa dakaniisa laga cabsanayay isbahaysiga la sameeyo soo maaragtaan ciidamo isku dhafo isbahaysiga dagaalka la geliyo Soomaaliland baqal shakadii waa tayaan mar labaad baan wali haynaa fanazala jibriil alayhi salaam baabil wahyi la soo dagay go'aankii markay gaareen ay gurigii hareereeyeen habeenimo ay tahay sida qisada dheer baa laga saaray min indillaahi buu kariimid fa akhbarahu bidalika uu sheegay waadina allah lahu bil hijrati buu idnay fahajara wa hijrooday halkaas ay maanta ku deyn bal bariye waxaynu ka gaadhno baynu isugu iman doonaa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk